بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة الحج ومدنية وآياتها 78 وتضباط الإسداد آيات. سورة الحج waxay ka hadlaysaa dhinacyada tashriica oo dadka loo jideynayo axkaam sharci ah, waxaana u badan xajka iyo axkaamtiisa, jihaad fii sabiili illaahi. labadaas mowduuc ee aada uga hadli doontaa, laakiin inta kale suuradda jawigeedu waa jawigii suuradaha makiga oo waxay ka hadlaysaa qiyaamadii, towxiidkii alle subxaanaه wa tacaala, bacfiga iyo jazaha, risaalada ayay ka hadlaysaa. waxayna lagu bilaabay suuradda awalkeeda qiyaamada iyo ahwaasheeda adduunka markuu dhacayo in isbeddel weyn ku imaanayo oo dhulka uu gariirayo, oo ay haweentii uurka lahayd uurkeedii ay dhigayso yowma yajcalu wildaana shiiban oo kale. magaceedana waa suuratu اlxaj. xajka waxaa marka loogu magac daray axkaamta xajka bay aada uga hadlaysaa. nebiyullaahi ibraahim alkhaliil baana xajka bilaabay oo beytka ilaahay dhisay, dadkana xajka ugu yeeray, ayna markaas ajiibeen ciddii loogu talagalay inay ajiibto. waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq. bismi illaahi الraxmaan الraxiim. yaa ayuha الnaasu اtaquu rabbakum ina zalzalaةa الsaacati shayء cadiim. ilaahay wuxuu amrayaa addoommadiisa inay isaga ka baqaan. taqwada ilaahayna subxaanaه wa tacaala waa imtihaalu اlawaamir waاjtinaabu الnawaahi. marka lasoo khulaaseeyo waa allah subxaanaه wa tacaala in wixii uu ku farana aada fartoontid, wixii uu kaa reebana aada ka reebtoonaatid. taqwadu waa intaas. yaa ayuha annaasu dadow itaquu rabbakum, rabbigii idin abuurtay ka cabsada oo uga cabsada wixii uu idin faray inaad qaadatiin, wixii uu idinka reebana inaad ka reebtoonaatiin. wax badan baa labadaas soo gelaya, amarka iyo nahyiga. ina zalzalata asaacati, saacadda qiyaamo gariirkeeda iyo lulashadeeda, shay-un cadiimun, waa arrin weyn. gariirka ay dhulka gariirinayso, lulayso, qiyaamadu waa shay aada u weyn. idaa zulzilat اlardu zilzaalaha wa akhrajat اlardu ahqaalaha waqaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadiثu akhbaaraha waxumilat اlardu waاljibaalu fadukkataa dakkatan waaxida fayowmaidin waqacat اlwaaqica. marka zalzaladaas waxay dhici doontaa aakhiru cumri اdunyaa wa awalu axwaali asaaca. adduunyada markii kharaabkeeda u dambeeyo, aakhirana ay bilaabanayso axwaasheeda. yaa ayuha annaasu dadow itaquu rabbakum, rabbigii idin abuurta ka cabsada. ina zalzalata asaacati, saacadda qiyaamo gariirkeeda iyo luliddeeda, shay-un cadiimun, waa shay aada u weyn. yowma tarawnahaa tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlahaa watara nnaasa sukaaraa
wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid ina zalzalata saacati shay-un cadiim yowma maalin bay weyn tahay tarawnahaa aada arkaysaan tadhalu in ay maaragtay iloobayso kullu murdicatin mid kasta oo wax nuujinaysay camaa ardacad waxay nuujinaysay bay iloobaysaa duhuulku waa shaygii in laga tago la iloobo wa tadacu way dhigaysaa waa soo tuuraysaa kullu daati xamlin tii uurka laheed xamlahaa uurkeedii bay dhigaysaa shiddada jirta iyo dhibka ay aragta daraaddeed bay la soo tuuraysaa waxay la mid tahay aayaddii kaloo ilaahay inoogu yidhi yowman yajcalu lwildaana shiiban ilmaha yararka ah bay ciro ka keenaysaa dhibka jira daraaddeed yowma maalin bay zalzaladu ay weyn tahay tarawnahaa zalzaladii baad arkaysaan tadhalu inay iloobayso kullu murdicatin mid kasta oo wax nuujisa camaa ardacad wixii ay nuujinaysay murdica markii ta lagu daro waa markaas ficilka la samaynayo nuujinta laakiin murdica waa inaan ta lagu darin murdic iyo xamli waa wax dumarka u gaar ah marka ta laguma daro ta'da waxaa loogu daraa farqi dakarkii iyo unfihii lagu kala saaro laakiin wax nuujiya ama waxa yacni uurka qaada waa dumarka cid kale wax ma nuujiso uma baahna marka ta in lagu daro laakiin hadda murdicatin markaasay nuujinaysaa markaa ta lagu daray tadhalu kullu murdicatin camaa ardacad wixii ay nuujinaysay bay maaragtay ka tegaysaa iloobaysaa duhuulku waa shaygii qofka uu ka maqnaado wa tadacu way dhigaysaa oo way tuuraysaa kullu daati xamlin mid kasta oo uur leh xamlaha uurkeedii bay dhigaysaa wa tara naasa dadkii baad arkaysaa qofka mukhaadabkaa lala hadlayo waa dadka dhan ama nebiga markaas khitaabkii lagu qabanayo qof kastana waa ka suuragal tara naasa dadkii baad arkaysaa sukaara ama sakra waa laba qiro ayagoo sakhraansan oo sidii qof cabsan khamro ay daandaansan yihiin tara naasa dadka arkaysaa sukaara ayagoo maaragtay wareersan wamaa hum bisukaara mana ahan dad wax ay cabeen la wareersan walaakina cadaab allaahi shadiid laakiin cadaabka alle ayaa aada u adag oo mowqifka meesha la joogo iyo shiddada iyo dhibaatada jirta daraaddeed baa sidaan sakhraamidda iyo inuu qofku daandaamo dhacdhaco waxaase ka keentay qofka oo maaragtay wax caba markii uu khamradaas cabo si toosa uma socon karo waa inuu xagga iyo xagga u dheeliyo waxaa ka keenaya marka waxa uu cabay buu la sakhraamay oo madaxii baa isbedelay laakiin tani ma ahan wax uu cabay inuu la wareeray laakina cadaab allahi shadiid tara naasa sukaara wamaa hum bisukaara mana ahan dad wax ay cabeen la wareersan walaakina cadaab allaahi shadiid laakiin cadaabka alleh ayaa daran wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin wayatabicu kula shayطaanin mariid min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yujaadilu dad ku murmaya fi llaahi ilaahay daatadiisa iyo maaragtay arrinka alleh oo ilaahay bay u nisbaynayaan awlaad ama haween ama wax shirko la-ah bay u nisbaynayaan ama qur-aankii bay ku doodayaan inuu yahay asaadiiru alawaliin ama maaragtay kahano ama sixir
ama wax la mida wax cilmi ay ku fadhiyaana maahan doodaase waa wax aan jirin maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu dadkaasa ku dooda ku murma min annaasi man yujaadilu fi llaahi ilaahay kuwa ku murmaya oo bacfigii bay beeniyeen awooddii ilaahay oo in dadka markay dhintaan lasoo bixinayo bay inkireen waa jidaalkay ka mid tahay min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin cilmi darro aqoon darro bay ku murmayaan wayatabicu mankaasi wuxuu raacayaa man yujaadilu yatabicu wuxuu raacayaa kulla shayطaanin shaydaan kulligiis mariidin madax adag oo muruxsan mariidku waa maarid waa shaydaanka midkiisa yacni maaragtay shaydaannimada intuu ku gaamuray mooryaanka noqday oo xiiran wayatabicu wuxuu raacay kulla shayطaanin mariid shaydaan adag ayuu raacay oo caati ah kutiba calayhi shaydaankaasoo korkiisa lagu qoray kitaabo qadari ah oo allah ku qoray annahu shaydaanka man tawallaahu ama arrinka inuu yahay shanigu man tawallaahu shaydaanka qofkii raaca oo ka wari dhigta fa annahu yudiluhu shaydaan inuu luminayo wayahdiihi uu ku hanuuninayo oo tusinayo ilaa cadaabi saciir cadaabka huraya ayuu ku hanuuninaya oo tusinaya hidaayada waa soo marnay khayrna waa noqotaa sharna waa noqotaa man dacaa ilaa hudan iyo man dacaa ilaa dalaala labadaba marka way hidaayadu way ka timaadaa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin marka waxaa loo leeyahay jahligu ninkan wax cilmi ah oo saxiixa kuma doodayo waxa uu sheegayo wayatabicu kulla shayطaanin mariid jahliga halkaasuu keeno shaydaan buu raacay shaydaankaasoo kutiba calayhi lagu qoray annahu man tawallaahu qofkii shaydaanka ka weli dhigta fa annahu yudiluhu shaydaan waa luminayaa wayahdiihi wuxuuna ku hanuuninayaa shaydaanku ilaa cadaabi saciir ina shayطaana lakum caduwan faاtakhiduuhu caduwan inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir waa cadaabi saciir buu dadka gaarsiinaya ku hanuuninaya qur-aanka meelo badan bay uga soo aroortay hidaayadaas oo sharta midii khayrkana waa soo marnay wajacalnaahum aa'imatan yahduuna biamrina wajacalnaahum aa'imatan yadcuuna ila annaar fahduuhum ilaa siraadi aljaxiim waxaasoo dhan marka qur-aanku waa noo sheegay yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacthi fainaa khalaqnaakum min turaabin ثuma min nuطfaة ثuma min calaqة ثuma min mudغaة mukhallaqaة wagayri mukhallaqة linubayina lakum wanuqiru fi اlarxaami ma nashaءu ilى أjali musaman markii la sheegay dadkii khilaafsanaay bacfiga oo inkirsanaay in dadka la soo celinayo ilaahay wuxuu noo sheegayaa daliil tusinaya awoodda rabbi in uu maaragtay rabbi dadka soo celin karo laba daliil baa marka loo keenay daliil annaga nafteenna bini aadanka yaana laga tusay daliilka kalena waa dhulka oo annagoon jirin oo cadam ah baa ilaahay aadam oo asalkeennii ah ciid ka abuuray annagana mani baana laga abuuray aan waxba ahayn
dhulkana isagoo abaara oo qallalan baa roob uu ku da'ay markaasaa wax ka soo baxeen taas marka waxay tusinaysaa ilaahay inuu awoodo wixii dhintana inuu soo bixiyo wadaraba lanaa maalan wanasiya khalqahu qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara wahuwa bikulli khalqin caliim yaa ayuha annaasu dadow in kuntum haddaad tihiin fii raybin min albacthi soo bixidda shaki kuwa uga sugan rayb waa shaki soo bixinta dadka la soo bixinayo oo ruuxdoodii iyo jasadkoodii inta la isku keeno in la soo bixinayo iyagoo nool ciddii ka shakisan fa innaa khalaqnaakum min turaab waxaan idinka abuurnay asalkiinni aadam ciid ilaahay marka ciid ka abuuray aadam cadam buu ahay ciiddii baa marka qof laga abuuray nool adigana ciidda lagaa soo bixinayo maxaaba taab yaa ayuha annaasu dadow in kuntum fii raybin min albacthi shaki haddaad uga sugan tihiin soo bixidda dadka la soo bixinayo qiyaamada fa innaa khalaqnaakum annagaa idinka abuurnay asalkiinni aadam min turaabin ciid uma min nudfatin adinkana waxaa laydinka abuuray mani nudfa waa biyo lagu sayray oo la sii daayey min sulaalatin min maa'in mahiin biyo liito xaqiira oo aduguba iska tuurtay uma min calaqatin waa maraaxisha ama adwaarta uu marayo bini aadanku marka hore mani buu ahay 40 beri buu mani ahay sida nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam uma min calaqatin waxay isku beddesha marka nudfadii calaqa waa xinjir dhiig ah 40 kale noqotay uma min mudqatin cad hilibah oo intii hal mar la calaliyo kale ah mudqa waa cad yaroo hilibah ayaa isku beddeshay calaqadii markaas marka waxay joogtaa waa 4 bilood waa 40 markaas ka bacdi baa ruuxdii la gelinayaa markaa ka bacdi baa laga dhigayaa ama dakar ama maaragtay unthaa lab iyo dhadig markaa ka bacdiya lafa iyo maaragtay loo sameynaya suuro ka bacdiya marka suuratu lmu'minuun ama qad aflax baa si fiican uga warrami doonta maraaxishaas uma min mudqatin mukhallaqatin waa cad hilibah oo dhammaystiran oo khilqadiisii la dhammaystiray wagayri mukhallaqatin iyo midaan dhammaystirnayn sida haddaba mushaahadka la arkayo kuwa waxaa arkaysaa bil 2 bilood markay joogaanay soo dhacayaan waa dhiciskaas laakiin kuwan waxay dhaafeen maraaxishii kale mudqa bay joogaan ruux baa marka lagu afuufay waa mukhallaqa mid la dhammaystiray abuuristeedii wagayri mukhallaqatin iyo midaan la dhammaystirin oon taam ahayn sidaa marka waxaa loo abuuray linubayina lakum inaan idiin caddayno kamaala qudratina inaan awoodno inaan dadka soo celinno markay dhintaan linubayina lakum inaan idiin caddayno in aan awoodno sidaas wanuqiru fi larxaami haweenka riximkooda ilmogaleenkooda waxaan ku sugaynaa maa nashaau wixii aan doonno ilaa ajalin musaman ilaa muddo la magacaabay riximkii haweenka baa halkaas baa lagu sugayaa waxaa laga yaaba marka 6 bilood inuu mid gaaro mid 7 gaaro mid 8 gaaro mid 9 gaaro mid uu ka sii bato wanuqiru fi larxaami riximyaalka
haweenka ilmogaleenkooda lagu sugayaa maa nashaa'u wixii aan doonno ilaa ajalin musaman ilaa laga gaaro muddo la magacaabay oo muddadii ilaahay ugu talagalay inuu ku soo baxo uma nukhrijukum markaasaan idin soo bixinaynaa طiflan adinkoo yaryar طiflan waa atfaalan uma nukhrijukum markaas dabadeed baan idin soo bixinaynaa طiflan adinkoo yar oo muluqa ilmo yar ah oo jirkaagii iyo maqalkaagii iyo araggaagii intaba waa daciif waxba ma qabsan kartid caqli ma jiro ka bacdiha marka ilaahay tartiib tartiib baa xoog loo siinayaa la siinayaa ilaahay baa barbaarinaya ka bacdihu markaa sii tegaya waa aragteen ilmuhu markay dhashaan waxba uma jeedaan xataa dareen saasa male waxba marka tabar daraa jirta uma nukhrijukum diflan waan idin soo bixinaynaa riximkii adinkoo yaryar uma litabluguu ashuddakum inaad gaartaan xooggiinnii iyo dhammaystirkiinnii ashudda waa awooddii iyo siduu u socdo qofku buu xoogaysanaya uma litabluguu ashuddakum inaad gaartaan xoogaabiddiinnii wa minkum waxaa idinka mida man yutawafaa kuwa la oofsanayo isagoo dhalinyaro oo shabaab ah wa minkum man yuraddu kuwa loo celinayo ilaa ardali اlcumuri cumriga midkiisa hooseeyo liita oo shaykhuukhada iyo duqnimada cantatabu gaaraya sida marka hore uu xoog u lahaay oo caqligiisii iyo maskaxdiisii ay taam u ahaad oo laga yaabo xataa qof uusan arkin inuu yidhahdo ma hebel baa ku dhalay sida u fahmo badan yahay kadib kuwu dhalo xataa ilooba aduu kuma ahaad yaa ku dhalay maba yaqaanaba waa ardal اlcumr waman nucamirhu nunakishu fi اlkhalqi afalaa yacqiluun waxba ma garanayo ilmanimadii u laabtay sariirtii awal maaragtay ku laabtay yaraantii wa minkum man yuraddu waxaa idinka mida qolo loo celinayo ilaa ardali اlcumuri cumriga midkiisa liita ardal waa kan hooseeyo asfala saafiliin oo qofku uusan waxba garanayn sidii ilmihii oo kale buu noqonayaa oo saxaradii laga qaadaya kaadidii kaas waa marka ilahay midka laga magan galay oo nebigu ka magan galay ardalulcumr kuwa loo celinayo likay laa yaclama inuusan ogaanin min bacdi cilmin aqoontii iyo cilmigii ka bacdi shay-an inuusan waxba ogaan qofkii awal shay ogaa shalay oo maskaxdiisa dhammaystirneedo taam ahaad maanta waxba ma kala ogaa likay laa yaclama ardalulcumrka waxaa loogu celinayaa likay laa yaclama inuusan ogaanin min bacdi cilmin cilmigii kadib shay-an inuusan waxba ogaan waana dacfiga bini aadamka allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwati dacfa wa shayba wa tara nnaasa waa daliilkii labaad midka hore wuxuu ahaay oo dadka ilaahay inuu soo celinayo bachiga tusaale looga dhigay adiga nafs aanta in kuntum fii raybin min albachi fainaa khalaqnaakum min turaab caddan bay ahayd daliilka labaad wa tara alarda dhulkii baad arkaysaa haamidatan ayadoo qallalan oo engegan oo eber ah waa daliil labaad oo awoodda ilaahay inuu dadka dhintay soo noolaynayo sida dhulkaas dhintay uu soo noolaynayo markii roob uu ku da-o baa dadka dhintana loo noolaynayo iyagoo laf iyo lud ay kala baxeen wa tara alarda dhulkii baad arkaysaa haamidatan ayadoo maaragtay qallalan oo eber ah fa idaa anzalnaa dhulkii haddaan ku dejinno
calayhaa dhulka korkiisa almaa'a biyo haddii korka looga soo dejiyo samada ihtazad ardadii baa dhaqdhaqaaqaysa warabad waana soo afuufmaysaa oo way soo bararaysaa wa anbatat waxay soo bixinaysaa min kulli zawjin nooc kulligiis bahiijin ifaya oo qurux badan oo wanaagsan dhulka waa aragtay markii wax ka soo baxayo asaga dhan oo soo fufaya kor u soo kacay waana soo dilacsan uma shaqaqna alarda shaqan faanbatnaa fiiha xabban waa laga soo bixinay waa baranaysaa marka ambatat faidaa anzalnaa calayha almaa'a biyo haddaan ku soo dejinno ardadii ihtazad bimacnaa taxarakad ardadii baa dhaqdhaqaaqaysa ilaa waxaana soo socda ka soo baxaya nabaadkii marka way dhaqdhaqaaqaysaa warabad wayna soo baranaysaa waa soo kacaysaa wa anbatat waxayna soo dhalinaysaa min kulli zawjin min kulli sinfin nooc kasta bahiijin ee wanaagsan oo ifaya oo qurxoon taas marka waxay tusinaysaa in sidaasoo kale adna lagu soo bixinayo daalika arrinkaas wuxuu ku sugnaaday midka sidaa yeelay oo adigana kaa abuuray asalkaagii ciid adigana nudfo kaa abuuray dhulkana ka soo bixiya nabaad bianna allaha huwa alxaqu waa alle xaqa oo jira oon la inkiri karin khaaliq maamula wixii uu doonana sameeya wa annahu yuxyi lmowta waxa dhintana waa nooleeyaa oo sida dhulka u nooleeyey oo nabaad uga soo bixiyey dadka dhintana saas u soo bixinay dalika bianna allaha huwa alxaqu dalika ishaaradu waxay ku dhacaysaa allaha sidaas sameeyey oo waxaas aad soo aragteen bianna allaha alle huwa isaga ayaa alxaqu alla haabit oo jira oo khaaliq mudabbir wa annahu yuxyi lmowtaa waxa dhintana isagaa nooleeya wa anna asaacata aatiyatun saacadda qiyaamana way imaanaysaa laa rayba fiihaa imaatinkeeda shaki kuma jiro inay dhacayso wa anna allaha alle yabcahu man fi lqubuur qubuuraha dadka ku jirana waa soo bixinayaa oo markii ay ahlu qubuur noqdeen oo baaba-een baa jiritaan kale baa loo samaynaya wa anna asaacata aatiyatun saacadda qiyaamo way imaanaysaa way dhacaysaa laa rayba fiihaa imaatinkeedana wax shakiya kuma jiro dad baa shaki uga jiraa oo inkiray laakiin ayadu inay imaanayso wax shakiya kuma jiraan wa anna allaha yabcahu man fi lqubuur alla wuxuu soo bixinayaa dadka qubuuraha ku jira wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yujaadilu fi llaahi ilaahay kuwa ku doodaya awooddiisii kuwa inkiraya kuwa wuxuusan ahayn u nisbaynaya bigayri cilmin cilmi la-aan bay ku doodayaan walaa kitaabin bigayri walaa hudan hanuun iyo waxyi ay haystaan iyadoo aysan jirin bigayri hudan bay ku doodayaan walaa kitaabin muniir iyo kitaab ifaya ayagoon haysan waa jahli cidlo ah bay ku doodayaan wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir waa cilmi la-aan iyo hanuun la-aan iyo kitaab intaba ila dadka hidaayada ilaahay wuxuu ugu soo dhiibaa kitaab rusul loo soo dhiibay oo lala soo diray iyo hanuun ilaahay qalbiga u geliyey iyo aqoon la siiyey
intaba midna kuma doodayaan waa baadil cadwa waa tii hore aan ku soo marnay baadida iyo jahliga taqliid bay ahayd shaydaan bay saarsadeen qaaluu bal natabicu maa wajadnaa calayhi aabaa'ana saasay ku jiraan haddana dadkii bay ugu yeerayaan caqli saxiixa iyo naqli sariixa midna ma jiro waa mujarad الra'yi wاlhawa cidla ah haaniya cidfihi weliba sida uu kibirka yahay haaniya cidfihi dhinaciisa ayuu laabayaa liyudila can sabiili اllaah si uu dadka u lumiyo jidka ilaahay uga lumiyo kibir daraaddeedu dhinaciisa laabaya haaniya cidfihi waa mustakbir can اlxaqi idaa duciya ilayh xaqa marka loogu yeero haaniya cidfihi haaniga waa laabitaan wuxuu laabayaa dhinaciisa waxay la mid tahay walaa tusacir khadaka linnaasi qofka asagoo dadkii kale iska weynaysiinaya buu dhinac u leexanaya oo janjaarsanaya haaniya cidfihi dhinaciisa ayuu leexinayaa liyudila can sabiili illaahi si uu u lumiyo dadka ilaahay jidkiisa uga lumiyo lahu wuxuu leeyahay midkaasu fi dunyaa adduunyada khizyun dulli iyo ihaano sida xaqa uu iskaga kibriyey hadhow ilaahay markuu la kulmo aakhiro wuxuu helayaa dulli iyo ihaano wanudiiquhu waxaan dhadhansiinaynaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamada cadaaba alxariiq cadaabka maaragtay uu ku gubanayo lahu fi dunyaa khizyun adduunyada wuxuu leeyahay liidasho iyo ihaano oo dadkii xaqa iska kibriyey adduunyadiiba waa ku dulloobeen beder kuwii 70kii la dhigay oo halkaas inta god lagu tuuray ihaano ka weyn ma leh waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofki ilaahay uu ihaaneeyo wax karaamayn kara ma leh adduunyada marka dulli bay ku leeyihiin aakhirana wanudiiquhu yowma alqiyaamati qiyaamadana waxaan dhadhansiinaynaa cadaaba alxariiq cadaabka dadka guba daalika khizyigaas iyo cadaabka aakhiro wuxuu ugu sugnaaday bimaa qadamad yadaaka labadaada gacmood wixii ay hormarsadeen oo aada galabsatay adduunyadii kufrigii iyo baadinimadii iyo jahligii iyo xaqii iska kibrisay dadkii weliba a ugu yeertay baadida intaasaa wehelisa daalika bimaa qadamad yadaaka cadaabkaasi wuxuu ugu sugnaaday aakhiro iyo adduunyada ihaanadeeda gardarro ma ahana bimaa qadamad yadaaka waa labadaada gacmood wixii ay hormarsadeen oo aada adduunyada ku galabsatay wa anna allaha alle laysa ma ahan bidallaamin lilcabiid addoommada mid maaga oo gardaraysta ma ahan ayagaa naftooda dulmiyey walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun qur-aanku meelo badan uga timi ilaahay marka qofkaan iskama maagine asagaa naftiisa dulmiyey oo wixii loo diray oo cibaadadii allah iyo rusushii loo soo diray iyo kutubtii wixii dhan u beeniyey wa anna allaha laysa bidallaamin alla addoommada ma dulmiyo lilcabiid addoommada wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhi khasira addunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan اlmubiin wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yacbudu llaaha dad alla caabudaya calaa xarfin calaa shakin shaki bay ilaahay ku caabudayaan oo yaqiin iyo hubaal
ilaahay kuma caabudayaan iyo cibaado saxiixa ee waa dad gebi qarkiis bay saaran yihiin xarfigu waa jambi ama dhinac oo haddii meeshaan ay wax ka fahmi waayaan xaggay usoo sikanayaan wixii dhanka kale hala aado sida munaafiqiinta oo kale ahaayeen haddii meeshaan xoogaa barwaaqo iyo la helo iyo qaniimo waa ku jiraan haddii meeshii wax laga waayana xagga kale jiraan min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yacbudu llaaha dad alla caabudaya calaa xarfin calaa shakin ama daraf bay alla ku caabudayaan oo gees bay joogaan islaamkii toos uma soo wada gelin udkhuluu fi silmi kaafa ala raba marka haddii waxaan fiicnaadaanna waa fiicanahay oo luga igu jirta haddii kalena bannaankaan jooga anugu fain asaab waa kana marka xarfigii waxaa laguu fasiray fain asaabahu khayrun wanaag iyo barwaaqo iyo nicmo haddii uu helo oo asiibo iطma'ana bihi waa ku xasilayaa islaamkiiba uu leeyahay waa fiican yahay barwaaqaa helay wain asaabathu fitnatun imtixaan iyo balaayo haddii ay asiibto inqalaba calaa wajhihi wejigiisa ayuu u laabanayaa oo waa ridoobayaa khasira addunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiro labadiiba waa khasaaray adduunyana ma helin aakhirana hadda waaba ku kufriyey oo cibaadadii ka hallowday marka shaqaawanimuu ku jiraa adduunkiina waa ku khasaaray wixii uu rabay iyo tacabkiisa waa khasaaray aakhirana waa khasaaray fain asaabahu khayrun iطma'ana bihi haddii khayr uu helo barwaaqo iyo caafimaad iyo awlaad wuxuu leey diinkan waa fiican yahay iطma'ana bihi waa ku xasilayaa wain asaabathu fitnatun balaayo hadday asiibto oo la imtixaano abaar lagu rido ilmihii maaragtay laga dilo ama maaragtay cudur ku dhaco ama maaragtay fakri uu ku dhaco inqalaba calaa wajhihi wejigiisiibuu u laabanayaa oo waa ridoobayaa diinkiibuu ka baxayaa khasira addunyaa waalaakhira adduun iyo aakhira kaas waa khasaaray dalika huwa alkhusraanu almubiin kaasi waa khasaaro cad khasaaro weyn ayaa ku dhacday khasaaro waxaa la yidhahdaa qofka markii lafihiisi uu waayo laakiin haddii lafihii uu hayo ma khasaarin raasmaalkiisi u haystaa marka dadkan wixii adduunyada dhan loo keenay oo ah wamaa khalaqtu ljinna waalinsa waa laga waayey marka waa khasaareen waxba ma hayaan dalika huwa alkhusraanu almubiin kaasi waa khasaaro cad yadcuu min duuni illaahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuh dalika huwa adalaalu اlbaciid yadcuu wuxuu baryayaa ama caabudayaa ama u yeeranayaa ficilkaas saddexdaasba waa keena dacaa yadcuu waa baryootamay dacaa yadcuu waa cibaado dacaa yadcuu waa tuugay intaba yadcuu wuxuu caabudayaa min duuni illaah alla ka sokay maa laa yaduruhu wax aan waxba ka dhibayn hadduu cibaadadiisa iska daayo walaa yanfacuhu aanan waxba u tarayn hadduu caabudo oo sanam iyo cidkii ilaahay ka soo hartoo dhan waxba uma tarayso dalika huwa adalaalu اlbaciid kaasi waa baadi xaqii ka fog oo waxba ma hayo qofkan cibaadada allah astaahilo iska leh haddii marka cibaadadii allah aysan ku dhicin wax ay ku dhacday midaan waxba u tarayn waxna ka dhibi karin yadcuu min duuni illaah alla ka sokay wuxuu caabudayaa maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuh midaan waxna u dhibi karin hadduu cibaadadiisa ka tago waxna aan u tari karin hadduu caabudo dalika huwa adalaalu اlbaciid kaasi waa baadi fog yadcuu wuxuu caabudayaa laman wuxuu caabudayaa sanam daruhu asaga dhibkiisu
aqrabu uu uga dhowaan badan yahay min nafcihi waxtarkiisa adduunyada maaragtay dararkiisa baaba soo gaaraya intaan aakhiro la gaarin oo nafcigiisa iyo dararkiisa waxaa badan dhibkiisa ayagu waxay u caabudayaan inay wax taraan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila اllahi zulfa sidaasa marka u caabudeen inay ilaahay u dhoweeyaan laakiin cibaadadan ilaahay ka sokay ee caabudaana darar aba ayadaaba hadhow lagu cadaabayaaba oo midka nafcigiisa uu ka sugayey hadhow dhibkiisaa uga badan yadcuu wuxuu caabudayaa laman buu caabudayaa daruhu asaga dhibkiisu aqrabu uu uga dhowaan badan yahay min nafcih qofkii waxtarka uu ka sugayey hadhow asaga maxaa u caabuda lagu cadaabaya oo ilaahay ka sokay buu caabuday ama waa la wadaajiyey marka nafcigiisa iyo durkiisa waxaa u dhow dhibkiisa oo nafci uu ka hela iska daa waxaa lagu cadaabaya maxaad u caabuday oo cibaadada ma lahayn isagu laman daruhu aqrabu min nafcihi labi'sa waxaa xumaaday oo baas lahaaday almawlaa mid gargaaro laga dhigtay almawlaa alcashiir oo lagu fasiraa labi'sa almawlaa mawla ayaa baas lahaaday walabi'sa alcashiir mid lala saaxiibo oo mucaashir ah ama wax la dhex galo oo lala mucaasharooda kaasaa u baas leh waa midkan ilaahay ka sokay uu caabuday waa cibaadadaasi waxay noqotay cibaado aan jirin labi'sa almawlaa mawla waa naasir miduu isaga u maleeyey nicma almawlaa wa nicma nasiir soo maha marka midaan waxba u gargaarayna waxna u qabanayn bi'sa almawlaa naasir baa baas lahaaday midkaana u baas leh wala bi'sa alcashiir cashiirkuna waa almucaashir zawjada waxaa la yihahdaa mucaashir ama kufraan cashiir marka mid lala mucaasharoodo oo la dhex galo oo wax lagu darsado kaasa u baas leh in allaha yudkilu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati jannaati tajri min taxtiha alanhaaru in allaha yafcalu maa yuriid markii la sheegay ahlu dalaal oo dad ashqiyo ah waxaa la daba dhigay ama lagu cadfay dadka abraarta oo sucadada ah waana qur-aanka had iyo jeer sidaan ku soo baranay min baabi targiib wa tarhiib in allaha alle yudkilu wuxuu geliyaa aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka iimaanka iyo camalka saalixaa sameeyey jannaatin buu gelinayaa tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalkii afarta ahay malab iyo caano iyo khamro iyo biyo ina allaha yafcalu maa yuriid alla wuxuu sameeyaa wax alla wixii uu doono cid dhahaysa maxaa u samaystay ma leh facaalun limaa yuriid ina allaha alle yudkilu wuxuu geliyaa aladiina dadka aamanuu allah iyo rusushiisa iyo wax alla wixii iimaan inay rumeeyaan loogu talagalay rumeeyey aamanuu marka waa caam wax alla wixii iimaan wa camiluu الصaalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey alla wuxuu geliyaa jannaatin jannooyin buu geliyaa tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda jannooyinkaas alanhaaru webiyaal ina allaha yafcalu maa yuriid alla wuxuu sameeyaa wixii uu doono oo qolana waa lumiyey qolana waa hanuuniyey waa facaalu limaa yuriid maxaa uu qofkan u hanuunisay maxaa kan u baadiyeysay wax walaa yakhaafu cuqbaha man kaana yadunnu an lan yansurahu allahu fi اddunya wاlآakhira falyamdud bisababin ilى الsamaaءi
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان قفك هذا يظن إنه أملينيه أن لن ينصره الله إنه سنقرقاري نبي محمد في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة ننك سدا أمليي فليمدد هتاغو بسبب حرق إلى السماء سماذا كركي سهوتاغو ثم ليقضع ثم ليقضع ثم ليقضع حرقي هجر مركو كرو تاغي هقويو فلينظر هفيريو هل يذهبن كيده لغرتيسي شرقال كيسو بل إني بابئيان ما يغيظ وحي وكعمشوني نبي ونعي أو أديدناي غرغارك بل إنه وحو دبي هفيري معنى هذا مركو وحو نقونيا قفكي أمرينا يا نبي إلهي إنه سنو غرغارين دين كيسا الدون يا آخرة هاسك دينتو عيل كيسا هو دينتو موتوا بغيظكم مهمة انتاسو حسد لماذا إيه عرادة كجرته أو رب نبي محمد إن أمارتي قرب كيسا الله كبحه وحاس مجرانه نفسدي سهيس دلو أسد اسمرج أركاس تقول لك اسمرج إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد من كان يظن قفك أمرينيه الله ينصره الله إنه سنقرقاري نبي محمد في الدنيا والآخرة دنيا آخرة فليمدد هتاغو بسبب حرق إلى السماء حق صراحة أتاغو ثم ليقضع هقو يمرك حرقي هجر حرقي مركو جرى وصدع يا سماء مركو محو تري واسمرجي يسعج فلينظر هفيريو هل يذهبن بل إنه بابئيي كيده هقرتيسي والنبي قال لدوني ما يغيظ وعريسناي بل نبي محمد وحكا تري هفيريو حبك ما تري وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد كذلك سيداس وكلبان أنزلناه قرآن كأسود الجني آيات بينات آيات عد سواء ولفظيسا هي معنيه سبا أي واضحيهين وأن الله ألا يهدي واهنونيا من يريد غفكه دونه هدايديسا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حكمة إلهي هي رحمديسا هي عدليسا هي علميسا عدو الدونه أيوة سوى هنونين عدو حقو خصب كرتماله كذلك أنزلناه وسود جنا قرآنك آيات بينات آيات عد سواء وأن الله ألا يهدي من يريد قفك الدونه أيوة هنونيا قفك الدونه واللمياه يهدي من يشاء ويضل من يشاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إلهي نغو الرمية ديمها كلا بدلا هديهين مؤمنين هديهين يهود هديهين نصارى هديهين ضد وحكلا آمنسا هديهين كوا الدين بايسان بمجوس إيا كوا إلهي وحلو ذاجيي الدنيا واس هايستان والله سكو مرين هاي خلافها كدح جرة أنا قمن إيا أنا توصن إيا أنا كذا قلوعا بالإسلام هاي إلهي فكرة صاري إن الذين ضدك آمنوا إلهي الرميي والذين هادوا يكون يهودي يوبي والصابئين وفرقة كم إذا نصارى قالت تري لكن نصارى بكدم بيسا صابئين تمرك وقال قارعة
oo ka leexday wixii dhammaayo diime ahay wanasaara iyo kuwa nebi ciise maaragtay ku abtirsanaya walmajuusa iyo kuwa dabcaabudka ah waaladiina ashrakuu iyo kuwa ilaahay wax la wadaajiyey intoodaasoo dhan ina allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaama qiyaamada alla waa kala bixinayaa waa kala saarayaa cadaalad buu ku kala xukumayaa qofkii ilaahay rumeeye jannou gelinayaa qofkii ilaahay ku kufriyana naar buu gelinayaa ina allaha alle calaa kulli shayin wax kasta shahiidun waa alle shaahid ku ah waa mid aqwaashooda iyo afcaashooda iyo waxa ay sameeyeen shaahid ka ah oon waxba ka qarsoonayn ina allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaama qiyaamada alla waa kala saaraya oo kala bixinaya waxay isku haysteen ina allaha calaa kulli shayin shahiid wax kasta alla wuxuu ka yahay markhaati alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi waالshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaabu wakaiiru min annaas ilaahay wuxuu nooga warramayaa asaga cibaadada keligiis inuu mutaystay cid wax la wadaagsatana inaysan jirin wax kastana asaga inay u hoganayaan oo u sujuudayaan hadday yihiin bini aadankii hadday yihiin jamaadaadkii malaa'igtii cid kastaba alam tara soo ma ogid ana allaha alle yasjudu inuu u sujuudo lahu alle man fi samaawaati samaawaadka wax alla wixii ku jira waman fi اlardi iyo wax alla wixii dhulka jooga waالshamsu qoraxda inuu u sujuudo wاlqamaru dayaxa inuu u sujuudo wاlnujuumu xidigaha inay u sujuudaan wاljibaalu buuraha inay u sujuudaan wاshajaru geeduhu inay u sujuudaan alle wاddawaabu wax alla wixii dhulka ku socda wakaiiru min annaasi iyo in badan oo dadka ka mida intaasoo dhan allay u sujuudaan wakaiirun in badan xaqa calayhim alcadaab waa kuwa sujuudda diiday xaqa calayhim alcadaab cadaab baa ku waajibay oo dadkii diiday sujuudda oo iska kibriyo ibliis u horeeyo dadkaas xaqa calayhim alcadaab cadaab baa ku waajibay waman yuhin illaahu alla qofkuu ihaaneeyo liido oo alla saxariiriyo famaa lahu min mukrim cid karaamayn karta ma jirto ina allaha yafcalu maa yashaa alle wax alla wixii uu doono ayuu sameeyaa waxaa jira xadiis abu hureyre uu wariyo saxiix muslim nebigu uu yidhi idaa qara bnu aadam asajda bini aadamka hadduu akhriyo sujuudda aayadda sujuudda fasajada oo uu sujuudo bini aadamkii ictasala shayطaanu yabki shaydaan baa ka dheeraanaya oo ka fogaanaya isagoo oynaya yaquulu shaydaan wuxuu leeyahay yaa weylii umira bnu aadam bisujuud bini aadam waxaa la faray inuu sujuudo fasajada waa sujuuday falahu ljanna janna uu leeyahay ibnu aadam wa umirtu bisujuud aniga ibliisana waxaa lay faray shaydaan sujuud baa lay faray fa abaytu waa diiday faliya naar baan leeyahay isagaa isku xukumay wallahu aclam